asalaamu calaykum soo dhowaada asxaabta qiimaha badan ee ku xidhan kanaalkeenani nolol wanaag ramadaan kariim fadlan haddii aad nagu cusub tahay hanaga ilaawin inaad sabskribe noo saarto ku soo dhowaada mawduuceena cusub ee maanta waa iska rabadaan asxaabta marun waxaa dhacda in la yar kala daaho laakiin had iyo goor waxaynu isku daynaa inaynu waqtiga nala tegin ee aynu si joogtaa ku wada joogno halkan waxaa maanta idinku wadaagi doonaa qodob muhiima oo aad kaga faa'iideysan karto bisha Ramadaan isagoo uu qodobkani yahay qodob markii ugu horeysayba inagu waajiba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inagu waajibiya haddana waxa jeclaystay inaynu xoog saarno bisha Ramadaan maadaama ay tahay bil cibaado sidoo kale chance badan la haysto oo laga faa'iideysan karo waxyaabo badan qodobkaasi oo noqonaya barashada cilmiga diintu waa dhaxalkii nabiyada naxariis iyo nabadgelyo korkooda ahaatee qofka bartaana wuxuu nasiib u helay dhaxalkii ambiyada waana fadli weyn iyo nasiib weyn oo qofka cilmiga bartay uu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri innal ulamaa warasatul anbiya lam yurasu dinara wala dirhama warasul ilma faman akhadahu akhadha bihadhi wafir ulamadu waa kuwa dhaxlay ambiyada lagama dhaxlin dahab iyo diinaar toona waxa laga dhaxlay cilmi qofka qaata cilmiga wuxuu qaatay dheef ballaaran ayuu qaatay cilmiguna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qofka anfacaya waxna taraya marka uu dhinto kadib gaar ahaan marka uu baro ama qoraalo dadka waxtar u leh oo ka tago nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam idha mata al-insanu inqada 'amaluhu illa min thalatha sadaqatun jariyah aw ilmun yanfa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu rawahu muslim qofku marka uu dhinto waxa go'aan amalkiisa saddex arrimood mooyaane sadaqa soconaysa oo uu la baxay cilmi lagu intifaaco oo uu dad baray ama ilmo wanaagsan oo u soo duceeya saas daraadeed waad garan kartaa fadliga uu leeyahay in cilmiga diinta ee sharciga la barto maxaa yeelay waa inaad aqoon u yeelataa diintaada iyo waxaad aaminsan tahay intaad karayso oo adiga lagaaga waramin waxaad aaminsan tahay bisha Ramadaanna waa fursad haddii aad ka faa'iideysatid aad kor ugu qaadi kartid maxay tahay aqoontaada diinta maxaa yeelay waa bil cibaadeysi oo dadku cibaadeysanayaan oo shayaadiintii waaweyneed la xirxiray saas daraadeed waxa weeye fursad ayaa ku jirta haddii aad ka faa'iideysato haddii aad u hooseyso aqoontaada diineed aad cilmi badan ku baran kartid oo kor u qaadi kartid saas ayuu ku eegyahay mawduucanu. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.